dilaa dharka dumarka ku wareejin jiray xaafadaha Muqdisho iyo mid abka Digital Campus u adeegsan jiray fulinta dhagaraha ayaa maanta laga soo dhaadhiciyay xabsiga dhexe loona diray dhanka hoose haliyeeye cibaado doon ah oo ka tirsan ciidanka Haramcad ayaana si wadajir ah u gacan saaray Cabdiqaadir Maxamed Xuseen afgarasho u ahayd oo ka tirsanaa jabhadaha qawaarijta ayaa mar dambe loo soo bedelay qaybta dilalka gaadmada ka geysata caasimadda waliba waxa uu ka mid ahaa koox adeegsan jirtay location-ka tilmaamo goobaha iyo jihooyinka kuna xiran satellite-ka ee Digital Campus shaqadiisii ugu horeysay si practical ah ayaa loo daawadsiiyay taasi oo ahayd dil gacanta hore loo sameeyay door dhameystir ahna uu ka qaatay marwada qof adilina anana dilay oo dheh adag meesha joogay waxaan fiirnay sidii wax u dhacayaan ayaa fiirnay hayaan dhadhamana markii si xigtay isagoo adeegsanaya tababarkii practical-ka ahaa ayuu dilay marxuum nabadoon Xaaji Muuse Haaruun Aadan iyo darawalkiisii marxuum X Kormeera labaad Bool Nuur Xuseen Calasow shantii bishii labaad ee sanadkii 2024 waana xilli nabadoonku uu ku hoolanaa gargaar u raadinta iyo u kurgalka baahiyaha dadka xaafadda Tabeelaha Sheekh Ibraahim degan intaan ugu dhiftay madaxa ugu dhiftay kuloo ku dhacay marka saan istaagayo habada ugu dhacday meesha aan fadhiyo saana oo kuf marka saana oo kufay kidib mas'axna markaas qabashada laamaha amniga waliba isagoo dhaawac ka ah wajiga kadib maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u fariisatay dhageysiga galkiisa 12 bishii 6 ee sanadkii 2024 xukun dil toogasho ah ayaana u soo baxday 15 bishii 6 ee sanadkii 2024 waana qisaasta marxuumiinta kala ah nabadoon Samafale Xaaji Muuse Haaruun Aadan iyo marxuum X Kormeera labaad Bool Nuur Xuseen Calasow Farxaan Maxamuud Cabdinuur Aadan oo Xasan afgarasho u lahaa dharka dumarka ayuu ku wareejin jiray wadooyinka Muqdisho si uu gabaad uga dhigto dhagartiisana aan loo fahmin waxa uuna ahaa horjoogaha shabakad dilalka ka fulin jirtay caasimadda kuwa doolka ah ee laga soo gamay duurkana waxa uu kala tusi jiray meelaha la beegsanayo maadaama uu ahaa magaalo joog ilbax noqday waxaa la baray sida loo fuliyo dilalka gaadmada ah baatilihii wareegi jiray xaafadaha Muqdisho ayaana isku bedelay dilaa arxan daran oo fuliyay dhagaro lagu beegsaday haliyeeye ka tirsan ciidamada qalabka sida 18 bishii labaad ee sanadkii 2024 waxa uu ceelasha biyaha ku dilay marxuum X Xidigle Cali Cabdullaahi Liibaan oo ka tirsanaa ciidanka asluubta sidoo kalena waxa uu si gaadma ah degmada Garas Baalley ugu dilay marxuum X Dable Xooga Xasan Cabdulqaadir Ibraahim 28 bishii labaad ee sanadkii 2024 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa